السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحاب تقاليga waa Salmaan Dacar halka iga daawanaysan waa Salmaan Dacar caawa waxaa idin hayaa muuqaal ku saabsan inta maaski ee aan isticmaalay intuu corona jiray sababta qaaliga aad baan inkaga mahadcelinayaa sida aad iigu xiran tihiin mar walbana ay ii taageertaan waxaan ka codsanayaa haddii ay tahay markii ugu horreysay oo ay soo booqatid inaad channelka subscribe saartid si aad ula socoto muuqaalada xigo muuqaalkeena haddaan usii gudagalno sida idin muuqato karoonuhu waa cudur aad iyo aad u halis badan isla markaana dad badan oo aad wada garanaysaan oo ama aad asxaab ahaydeen ama aad garanaysaan galaaftay sidoo kaleeto waa maaragtay waa iska imtixaan adduunyo muddo hadda laga joogo sanad iyo wax la jiro laga soo bilaabo sanadkii hore 2020ga bishii saddexaad ilaa sanadkan aan hadda ku jirno ee 2021 oo la marayo bishiisii shanaad ay gabagaba tahay intaas afkaan noo duubnaa caawa waxaan rabaa inaan halkan inkula wadaago meeqa maaski ama meeqa af xir baan xirtay horta sanadkii hore bishiisii saddexaad ilaa uu ka dhammaanayay waa muddo adiga 10 bilood ah markii bishii saddexaad laga soo bilaabo muddo 10 bilood ah muddadaas 10 bilood ah ma aanan xiranin ma aanan maaragtay kaydinin af xiriyaashii aan isticmaali jiray oo hadba markii aan maaragtay meeshii aan gaaran isaga tuuri jiray oo mid cusub baan ka qaadan jiray laakiin markuu sanadkan dhashay waxaa igu soo dhalatay ama igu soo dhacday inaan maaragtay kaydiyo oo aan muuqaal ka sameeyo haddii aan kaydin lahaa intaan way ka badnaan lahaayeen sababtoo ah sanadkan hadda 5 bilood buu marayaa 5 bilood oo sanadkan ayaan kaydiyey afxiradan oo mar walba oo aan maaragtay iska bedelo aan meel gelinayay si aan muuqaal uga sameeyo marka asxaabta qaaliga sida idin muuqato af xirki baan xiranayaa waa aragtaa af xirki baan xiranayaa marka ilaahi waxaan ka rajaynaynaa in uu maaragtay cudurrada iyo waxyaabaha maaragtay dhibaatadanada anagu aan sameynay ka dhashay in ilaahi maaragtay sharkooda naga duwo sidaad la socotaan dad fara badan buu galaaftay cudurkan oo aad asxaab tihiin oo aad qaraabo tihiin oo ehel tihiin oo dhammaantiin maaragtay kolley maanta dadka uu galaaftay lama soo koobi karo ilaahay ha u naxariistee dad fara badan baa dartiis u dhintay oo uu ka mid yahay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cali Khaliif Gallayr sidoo kale uu ka mid yahay madaxweynihii hore Allah u naxariistee Cali Mahdi Maxamed uu ka mid yihiin ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya ninka la yiraahdo Nuur Cadde uu ka mid yahay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya asagana Xasan Abshir sidoo kale uu ka mid yahay Abwaan Sooraan ama Ibraahim Ismaaciil Suguule Allah u naxariistay oo nin aad bulshada Soomaaliyeed ay u wada garanayso oo maaragtay aad loo yaqaan ahaa sidoo kale wuxuu galaaftay Allah u naxariistay dad fanaaniin ah sida Faadumo Nakruumo oo kaleeto maama Faadumo Nakruumo ilaahay ha u naxariisto oo kale Allah u naxariistay wariyihii BBC-da Axmed Cabdi Nuur buu galaaftay dad caan oo aduu maaragtay uu ka mid yahay Allah u naxariistay wasiirkii hore gaashaandhigga ee Kenya Yuusuf Xaaji lama soo koobi karo bahalkan cudurkan dadku galaaftay ilaahay u wada naxariisto dadka maaragtay la garanayay madaxda ama caanka ah waxaa ka badan dadka kale ee shacabka uu galaaftay oo aan la soo koobi karin asxaabay marka cudurkan ma ahan maaragtay ciyaar ma ahan ilaahay ha naga badbaadiyo ducaha laga akhristo dadaal ha la sameeyo run ahaantii waa cudur maaragtay halistiisa leh qof walba oo maaragtay Soomaali ah ama maaragtay qof weyn mas'uuliyad baa ka saaran inuu ilaaliyo caafimaadkiisa iyo caafimaadka bulshadaba sababtoo ah haddii aad ka taxadari weydo adigana wuu ku galaafanayaa adigana dad kale aad galaafanaysaa haddii lacala uu kugu dhaco cudurkan oo afku kuu furnaado dad kale aad qaadsiinaysaa adigana wuu ku dhibaataynayaayo haddii aad afka furato waxaa macquul ah ugu dambeyn inuu adiga ku galaafto u dhimato marka naftaadana badbaadi nafta dadka kugu xeeranna badbaadi oo ay familka ka mid yihiin sababtoo ah mas'uuliyad baa kaa saaran waana la isweydiin aqriya adduunba ma ahan wax oo maaragtay dhayal sababtoo maanta haddaad sabab u noqoto qof inuu u dhinto waxaad ka qayb qaadatay qofkaas dhimashadiisa hadduu kugu dhacana waa in lagaa badbaado haddii aadan qabinna waa inaad adigu kuwa qaba ka badbaado oo mar walba maaragtay afka aad xirato
ilaahayna aad tala saarato, sababtoo ah wixii ilaahay laga magangalo ilaahay waa kaa magangelinayaa, ilaahay wuu kaa magangelinaya wuuna kaa leexinayaa. mar walbana waxaa muhiim ah ducada muhiim ah. afka keliya in la xirto yaan lagu dadaalin, sidoo kale hala ducaysto, ilaahay subxaanahu watacaalana ha laga baryo in uu maaragtay naga dulqaado. waxaan waa cuquubo, waa wax ka dhashay dhibaatooyinkaan samaynayno. ilaahay asagaa noo sheegayo oo qur-aankiisa ku sheegayo, wamaa asaabakum min musiibatin fa bimaa kasabat aydiikum wayacfu can kathiir. dhibaato idinkuguma imaado ama inkuma dhacdo, ilaa hadday idinku dhacdo waa waxaad gacmihiina aad kula imaadeen. marka inta naloo cafiyey baana kasii badan oo lama xisaabin karo. inta ilaahay uu noo cafiyey baa ka badan. dhibaatada nagu dhacayso aad arkaysaan waa wax yar oo ka mida wixii aan galabsannay. inta kalena ilaahay subxaanahu watacaala wuu noo cafiyey, sababtoo ilaahay subxaanahu watacaala waa ghafuururaxiim, waa mid dembi dhaaf badan. addoommadiisana mar walba inay u toobad keenaan buu ugu yeeraa. cudurrada iyo colaadaha iyo dhibaatada waxoo dhan waa wax maaragtay ka imaado cuqubada ay geystaan dadku. markii qur-aanka uu ka sheekaynayo ummadihii hore, qoomkii nebi luud, qoomkii nebi nuux, qoomkii nebi muuse iyo reer bani israa'iil, waad aragteen markii laga sheekaynayo, waad aragteen markii ilaahay ambiyo usoo diray iyo nebiyo oo ay diideen oo ay xadgudbeen oo ay dhibaato fara badan sameeyeen, kadib ilaahay wuu halaagay. sababtoo ah waxaa lagu halaagay in yaroo ka mid a wixii ay sameeyeen, oo nimcadii iyo barwaaqadii iyo wixii ilaahay siiyey bay ku caasiyeen, way ku kufriyeen, kadibna ilaahay subxaanahu watacaala wuu ku halaagay. marka mar walba waa in aad ka digtoonaato waxyaabaha keenaya cuqubada. mar walbana waa in la badiyo maaragtay istikfaarta, alla usoo noqoshada, iyo mar walba waa in maaragtay ilaahay subxaanahu watacaala lagu tiirsanaado oo maaragtay laga magan galo waxyaabaha noocan oo kale ah. shaki kuma jiro waxyaabahan waxa keenay waa wax un aan galabsannay. marka sidee looga gudbi karaa? waxaa looga gudbi karaa waxyaabihii waxaan sababay in la iska dhaafo oona iska dayno. ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka rajaynaynaa inuu naga samata bixiyo cudurkan halista ah. sidoo kale ilaahay waxaan oga baryaynaa jannadii firdowso dadkii uu maaragtay galaaftay ama maaragtay asaga sababsaday, in ilaahay subxaanahu watacaala uu qabriga u nuuriyo. si dadaalka loo baahan yahay ee ku aadan koroonaha iyo markaad fiiriso dadkeena say u dhaqmayaan isma lahan, sababtoo ah gacmaha in la iska dhaqo oo maaragtay la nadiifiyo, in sidoo kaleeto maaragtay afka la xidho oo maaragtay la iska ilaaliyo meelaha public oo kale markii la joogo si fiican afka loo jeebto ama af xirka si fiican loo xirto. sidoo kaleetana maaragtay salaanta iyo galaangalka farada badan iyo booqashada la yareeyo, sababtoo ah haddaan la yaraynin dhib bay keeni kartaa. marka asxaabta qaaliga ah, waxaan jeclaystay inaan idinla wadaago muuqaalkan. aad baan idinkugu maaragtay mahadcelinayaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.